waryaadaheen halo waqumayo xorxil diid soo sheekooyinkii in yar baynu dhammaynaynaa maxaan ku idhaahaye dee chartkan ku saabsan maxaan ku idhaahaa eclipkan soo socda luna eclipskan ya dee maalintii sagaalaad bisha tobnaad ya oo wuxuu dhacayaa beritoole ilaa iyo saa dambe ya ayuu imanayaa ayuu dhacayaa maxaan ku idhaahaye luna eclipskan ya dayaxan waxa qarinaya ya waa markii wax laysku hoos tusinayay marka 16keeda berito waa 15 ya okay 15 ilaa 17 ayaa la filayaa ya 16keeda around that time marka waxbaa idinka yar gaarsiinaya ku saabsan dee shaxdan aan u akhriyey ama chartkan astrologygan aan u akhriyey cirka maalintii dhaweytoole waxaan ku dhaafay dayaxa inuu ku jiro godka Capricorn oo dee Capricorn waa idiin sheegay wuxuu yahay the goat ya ama goatka siyaasadda ama dee goatka naannimada ama goatka dee qof kasta oo wax hal abuur laya ama dee maaragtay wax ku dhex jira ya marka oo dee wax ama wax cusub ahaato ama wixii waxa ka bedelo marka taasa la isku wada lahaynaya goodnimadan soo maaha ya ama sporti ahaato waxay doontaba dee goodkuna waa orgiga soo maaha marka nimanku markay ama dee xitaa naaguhu waad oran karaysaa markay waxay isku laynayaan dabeecadda orgiga ayaa la yeelanaya ya but so taas dayaxi godka wuxuu ku jiraa Capricorn baan idhi waanigii in yaroo faahfaahinayna idinka siiyey marka intaasaynu ku daynaynaa horta waxaan rabaa in yar goodka aynu ka hadalno goodka maxaan ku idhaahaa dee ama dee ninka khatarta ah ay ku saabsan tahay raabka because ilan Soomaali baa layahay xaasidiin baa idinka buuxdee raabkan iminka aan maqlayay maalmahan oo dee laba nin isku haystaan labadan nini sanad ka hor labadii nine ku heshiiyey wiilkii yaraaye maxaa la yidhaahaa big moa inay khadka ka saaraan markuu iska celiyey may ahaayeen ya waa kii uu ku yidhi laba isku soo raaca waa idinku dul joogsanaya libaaxyada soo dega ya marka labadii de markaaba wiilka yar maaragtay isku soo raacday unbaa haddana iminka isku tirinaysa soo maaha marka you reap what you sow baa la yidhaahaa ya waxaad tashay ama waxaad meel god ku ridatay unbaad kala soo baxaysaa marka labada nin I don't know dadku waxay ugu kala hilinayaan laakiin haddaad dee wax fresh ah oo wax new oo odhanaysiin hebel baa goata dee wiilkaasaaba khadka ka saaray wiilka ayaaba samarkii maxay ahayd dadka malaa samar bay ahayd mise samarkii ka hore ahayd wallaahi bilaahi waxaan arkayay gabdhihiiyo xitaa berigaa tiktok baan ku jirayo gabdhihiiyo waxaan arkayay wallaahi qolal intay soo furteen waryaadaheen wiilkan big moa wallahi waa nin buu egyahay eeg suu dheeryahay eeg qaab dhismeedkiisa nin xoog la weeyay gabdhihii oo dhan baaba ayaa wiilkaa ka daba dhereerinaya marka raabnimadii iyo ninnimadiiba wuu idinka qaadayo meel buu idin dhigay but I know sida habraha idinku iskugu soo tiriya ya qofka dadka lama xaasido ya laakiin dee cunsurinima idinka buuxda cunsurinima idinka buuxda iminkana idinkuun baa isku soo jeestay not funny adduunku waa saas haddaad long enough joogtid maaragtay wax kasta indhahaadoo shanaad arkaysaa so dayaxii iyo goodkuu ku jiray waa kaa maxaa rabaa in kala inaan ku daro mise okay taasi dayaxay ahayd iminkana waxaan idhi mercury ya wuxuu ku jiraa godka librana waan yidhi waa miisaanka ya waa markaad waxaad skeelka saaraysid miisaamaysid ya oo dee u kala gar qaadaysid ya ama dee wixii balance siinaysid ya marka xitaa hadday qofkii maaragtay dee aad garta siinaysid ya qof dad lamida waa inay meesha joogaan soo maaha marka xitaa raabkiinaaba khaldanba saad wuxuu u miisaamaysiin ood u garqaadaysiin baaba khaldanba because berigaasaad miisaami lahaydeen wax laakiin berigaa markaad miisaanteen dee waa laga badiyey labada nin hanagu soo celcelina anaga sheekadan so mercury wuxuu ku jiraa godka libra mercury wuxuu ku saabsan yahay waxaa la idhaahaa waxa weeye
waxa lagu tilmaamaa nebigi ilaahay wey because Mercury wuxuu ku saabsan yahay ama energygiisa ama wuxuu astaan u yahay communicationka messageyada la isku gudbinayo warka ila newska kamid sida la iskugu tirinayo sida loo wada hadlayo sheeko xiriirka Greekana waxay dhahaan magaciisa waxa u yaqaana nin la yidhaaho Hermes maad maqasheen oo isaguna ahaa kii u kala turjumayay ilaahiyada iyo dadka messengerku waa waxaas uu ku shaqalayay soo maaha information kan uu qaadaya kan uu geynaya dadkan postmasterka cadde mailka ku keenaya iyaguba de waa messengeryaan soo maaha marka waxaasoo kale u qaabila waxaas energygiisu ama de energygiisu ama astaantiisu waxaasay qaabishaa informationka inay ku keenaan kaa qaadaan ama information ku keenaan meel kale oo de maxaan ku idhahayay authority la inay kasoo qaadaan so waxaan idhi sheeko xiriirkii Hermes bay loo yaqaanaa masaaridii hore waxay yidhaahaan Tot ama Tahuti waa magacii hore maogtahay waa magacii hore loo yaqaanay Djibouti xaggee ka timid Mercurygan bay ka timid Tahutigan bay ka timid berigii hore Tujurn baa la oran jiray Tujurn iminkana Djibouti baa loo bixiyey oo xeebtaasi waxaa la yidhaha waa xeebtii ay kasoo degteen magaceedii Hatshepsut markay imanaysay markay Soomaalidii ama dadkii hore dee kushaadka Soomaalidii halkaa deganaa islaayeen masaaridii hore oo dadkii ancient Egyptianka ahaa islaayeen waa tii halkaa kasoo degtay oo ninka la socday baa wuxuu ahaa wasiirkeedii oo dee Tahuti ahaa ama magacan Djibouti noqonaya oo wuxuu ku saabsan yahay communicationkan idhi soo maaha safarkuu ku saabsan yahay xitaa travel wuxuu ku saabsan yahay commerce waxa la yidhaaho dee bacmushternimada wax kala iibsiga iyo the tradeka waxaan tradeka iyo the financial transactionka waxaasuu ku saabsan yahay oo astaan wuxuu u yahay dadkan dee idoorka okay so sheekadan iminka Mercury waxaa loo yaqaanaa nebigii ilaahay ama messenger of God baa loo yaqaanaa masaaridii islamically Idris baa loo yaqaanaa Christianku ama dadkan Ethiopianka Christianka ahaa iyagu waxa u yaqaanaan Enoch oo Book of Enoch iyagaa hayaba buugga masaaridii hore aan dib ugu laabano sheekadani it's very important masaaridii hore waxay u yaqaaneen ninkan oo the Greek and Hermes waxay ka qaadanayaan masaaridii hore marka masaaridii hore ninkan waxay u yaqaaneen Tahutina marna Tot baa la yidhaha xitaa ereygan Tot ama dee fikirka isaguu ka yimid marka isaga wuxuu maamulayaa energygan waxay maamulaysaa uu astaan u yahay communicationka financial transactionka waxaan commerce la idhaaho dee idoornimada wax kala iibsiga bacmushternimada safarka travel waa information processing way marka oo dee wisdomka laguu sheegayo ama kalamka laguu sheegayo ilaahay wuxuu yidhi ilan qur-aanka xitaa dhowr jeer meelood baa ku qoran tahay waxa ku saabsan wax kala iibsiga ama dee sida wax loo kala iibsanayo cadaaladda soo maaha marka ninkan Tahuti baa loo yaqaanay waa magacan Djibouti halkay ka keenayso xeebtan Djibouti because ereyadaasuu kasoo degay iminka meeshan dee Eritrea ilaa iyo berbera Djibouti meeshaasi beriga ilayn dhowr xeebood ma ahna meel isku wada xidhan bay ahayd I don't know inaad heestii garanayseen maqasheen waa beri xeebtaa Djibouti oo Soomaali laga xaday marka waa isku meeshii baa laga hadlaya marka dekedaa uu kasoo degay iyo dekedan kale xitaa maxaa la yidhaahaa
dekad kalaa jirta areadaasay kasoo degtay marka magacan Djibouti wuxuu ku hadhayaa magacii Tahuti Tahutina wuu yahay waadii inii sharaxayaan yidhi waan waxa weeye the message of God wuxuu ahaa laakiin masaaridii hore wuxuu ahaa Tahutina wuxuu ahaa wasiirkii la socday Hatshepsut yaa gabadhii shaabuga sideetay yaa gabadhii Pharaoh ahayd yaa oo la yidhaaho iyadaa gadhka xidhatay yaa iyaduu la socday iyada markuu la socday waxay u yimaadeen xidhiidhkii kala lumay dadka inay dib u soo celiyaan waxaa jirta waxay yidhaahaan sheekadan dee diintan yahuudda noqon doonta yaa reer bani Israa'iil waxay ku saabsanayd masaaridii hore dhexdooda iyaga isdagaalay marka waxaa jiray group la yidhaaho Hyksos oo iminka waxay bixiyeen Hyksos laakiin odayga Abu Shacayb baaba beri ka hadlayay 3 sano ka hor yaa oo sheekadeeda markaad u fiirsatid iyadu xukunka markay soo kortay waxay go'aansatay inay dib ugu soo laabato dhulkii ilaahiyada dhulkii awowayaasha oo xidhiidhkii soo celiso marka Hyksoskan lagu sheegayo waxa weeye marka magacoodu waxa weeye Hego weeye oo xarintoodu abaarsay ahayd yaa Avris bay dhahaan laakiin waa abaarso xarintoodu halkaas ay ahayd now beriga waxay isku laayeen ninkii xukunka hayay Ramesses la oranayay yaa Ramoses waa Muuse magaciisa xitaa halku ka yimid isagaa rule gareynayay oo waxay ahayd dynasty 14 yaa marka nimankani heegay sameeyeen ilaa Soomaalida arkaysa heegooyinkan la sameynayo oo habarwacan la wada groupyadan la wada sameynayo alliances kan la sameynayo yaa marka saasay berigaaba sameeyeen waxay rabeen xukunka inay Ramoses ka ridaan isaguna uu iska celiyay oo qaarna waa la xidhay qaarna waa la dilay badankoodu kuwii kale cadhooday maaragtay Soomaalidu qabiiladu xitaa marmar way isbedelaan oo habeen guur iyo maalin guur oo way reero kale u galaan marka kuwaasi dib bay u soo laabteen dhulkii awowayaashood dhulkii ka imaadeen markii laga badiyay waa heegadan Hyksoskan yaa dad kale ka dhigaan maahe waa inaga qaar inaga mid un baa soo laabtay dib bay u soo laabteen waxa laga hadlayaa 15 dynasty marka laga soo badiyay way soo laabteen halka xarun bay ka furteen abaarso halkaasay deganaayeen diin cusub bay samaysteen laakiin weli dhaqankii iyo de culturekii masaaridii hore unbay in yarba bedeleen magacyadii iyo sheekooyinkii bedeleen laakiin weli sidii bay wixii u hayeen Hatshepsut markay xukunka soo kori doonto iyadu waxa weeye 1819 dynasty weey marka waxay go'aansatay inay dib ugu soo laabato oo heshiiskii la isla lahaa ay dib u soo celiso ilayn almost maaragtay 4-5 dynasty la isla ma hadalin yaa markay timid waxay ka soo degtay xeebahan iminka Berbera Djibouti Eritrea iminka meesha ku taalo dekadahaasay asmaraad halkaasay ka soo degtay yaa Djibouti magaca Tahuti marka iyadu la socdo wasiirkeedii buu ahaayo afahaynkeedii iyo ninkii wax la maamulayay buu ahaa mogtahay markay afkarteen ay isfahmeen waa tii dib u laaban doonto oo la siin doono de foox alaab badan ka qaadi doonto dhulkan Punt yaa oo dib ugu laaban doonto oo xiriirkii saas ugu soo laabtay yaa iyadaa timid Mercuryna ama Tahutina wuxuu ku saabsan yahay communicationka wuxuu ku saabsan yahay bacmushternimada wuxuu ku saabsan yahay travels wuxuu ku saabsan yahay mercantile dee wax kala iibsiga so astaantiisu isagaa la socday oo advisorkeedii ahaa oo wasiirkeedii ahaa yaa marka iminka waxay ka dhigayaan Hyksosku inay yihiin dad cadcad oo buuraha Yurub dega no 150 sano ka hor ayay dadkan cadcadii 1800kii bay yimaadeen oo dadkii wada deganaa areada dhan iminka waxaan dhulkan carbeedka la isku idhaaho inagun baa deganeen dadkiisa usoo push gareynayeen bay qaaradda Afrika ku soo wada riixeen yaa laakiin intaasoo dhan dad baa maamuli jiray oo dadkan ku shaytaa deganaa ma fahanteen yaa oromadan lagu sheegay waa Cusmaaniyiintii xoogga lahayd ee laga hadlayo iyaguba way ka mid yihiin mogtahay wuxuun baa la isku dagaalay beri markastaba group baa baxay waxbaa la isku dagaalayay ma ogtahay marka Cusmaaniyiintani magacooda Oran baa la yidhaahaa waxa weeye waa cousin-kooda Kushite-ka magaca Kushite-ka waa halka laga keenay cousin waa isku familigoodin weeyo kala baxay yaa
marka 150 sano ka hor markii gumaystu yiminayay dad kala la beeray oo dad kala la dhisayo taariikhtii baa la siiyay laakiin haddaad dib ugu laabatid historic ahaan waad arkaysaa sheekadu meesha kasoo bilaabantay yaa waad iska fahmaysaa laakiin wixii waa inaad kala garanaysid oo waa inaad maxaan ku idhaahaye garaad dheer leedahay aad sheekooyinkan ku wada fahantid yaa idan kolba storigi inta la qaaday baa la rogayaayo sheeko kale noqonaysaa yaa marka iminka sida dadka Soomaalida waxa lagu wadaa badda wallahi in lagu daro yaa because wali taariikhtii dad badan baa xitaa dhulka ku aasan buurahan bari iminka dad badan oo dadkii hore ku aasan ilaa iyo warqadahoodii iyo buugaagtoodii iyo waxay qoreen baa xitaa ku aasan oo la rabaa in la burburiyo yaa waxa jirta xitaa inay dad badani habeenkii intay maadaan lafooyin iyo wax yaro historical wallahi intay gurtaan dhulka kala geynaya yaa iminka meeshan Masar la yiraahdo hadaad u fiirsatid waxay ahayd xabo meel waxay ahayd desert markay noqotay meesha waa la iskaga soo tagay yaa oo waxay noqotay meel qabuuro ah ila badanka qabuurun baa imka ka buuxa meelaha imika la fafaqayo habeen iyo maalin dadkii meedkii la soo gurayo waa meelo dad ku bari hore ka tageen oo qabuuro weeyo yaa oo lagu aasay marka wax information inta ay soo gurtaan warqadihii papyrus la yiraahdo bay dib u akhrinayaan oo anaga iskale bay leeyihiin marka imika Masar maxay rabtaa inay dhulka u soo gasho Turkidani maxay rabaan dhulka inay u soo galaan because taariikhda xitaa la isku haystaa moogtahay marka idinku wax fahmaa yaa Mercury-na imika wuxuu ku dhacay godka Libra yaa marka inda sixriyuuna inagu dhicin maxaa la yiraahdaa lunar eclipse kan waa marka wax la isku hoos gelinayo khadka la isku xaday ما فهمتين